Haddii aad daabaci lahayd nuqul ka mid ah dukumeentigaaga oo aad weydiiso saaxiib inuu dib u akhriyo, waxay u badan tahay inay khaladaadka ku calaamadin doonaan qalinka cas oo ay ku qoraan wixii talo ah ee ay hayaan. Miyay sahlanayn haddii aad taas ku samayn karto si elektaroonig ah? Gudaha Word waxaad awoodaa adoo isticmaalaya laba sifo oo lagu magacaabo track, changes and comments. Waxaan hadda daari doonaa isbeddelada jidka si aan kuu tuso waxa aan ula jeedo. Si aad tan u samayso, aad tabka dib u eegista ka bacdi dhagsii amarka isbeddelka track-ga. Hadda isbeddel kasta oo aan ku sameeyo dukumeentiga waxay u muuqan doonaan sidii markub, taas oo ah jawaabta Word ee qalinka cas ee soo jireenka ah. Tusaale ahaan, marka aan tirtiro qoraalka, ma tagno waa la iska dhaafaa. Marka aan ku daro qoraal dheeri ah, waa la hoosta ka xariiqaa. Tani waxay u oggolaanaysaa milkiilaha dukumeentigu inuu arko isbeddelada aan sameeyey ka hor inta aan iyaga laga dhigin qayb ka mid ah qabyada kama dambaysta ah. Waxaa kale oo aad ku dari kartaa faallooyinka geesaha adiga oo dooranaya qoraalka aad rabto in aad ka faallooto kadibna gujiya taliska cusub ee faallooyinka. Tusaalahan, waxaa fiicnaan lahayd in si toos ah warqadda loogula hadlo hay'adda shaqaalaynta, markaa taasi waa waxa aan soo jeedinayo. Markaad dhammayso, taabo furaha S ama guji meel kasta oo ka baxsan sanduuqa faallooyinka si aad u xidho. Haddaba, sidee buu u shaqeeyaa haddii aad ku jirto dhinaca kale ee dukumeentiga? Hagaag, qoraaga asalka ah ahaan, adiga ayay kugu xiran tahay inaad aqbasho isbeddelada si aad uga dhigto mid joogto ah ama diido haddii aad khilaafto. Isbeddelkan halkan ku qaado. Kaliya ku dooro cursorkaaga kadibna u tag aqbal si aad u ilaaliso ama diido inaad ku noqoto qoraalkaagii asalka ahaa. Xitaa waxaad furi kartaa menuyada hoose ee amarada oo aqbal ama diidi kartaa dhammaan isbeddelada dukumeentiga hal mar. Waxa aan aqbali doonaa hal beddel oo keliya. Si aad meesha uga saarto wixii faallooyin ah, ku bilow adiga oo dooranaya sanduuqa faallooyinka kadibna tag amarka delete. Haddii aad hayso faallooyin badan, waxaad tirtiri kartaa keliya kan hadda jira, ama waad tirtiri kartaa dhammaantood hal mar. Halkaa marka ay marayso, waxaa laga yaabaa in ay ku caawiso in aad aragto qaar ka mid ah calaamadaynta oo dhinac ka baxsan halkii aad ka arki lahayd qoraalka laftiisa. Tani waa inay dukumentiga ka dhigtaa mid fudud in la akhriyo. Marka hore, aad taliska show markub kadibna buufinada. Hadda dhagsii show revisions in balloons iyo qaar badan oo ka mid ah isbeddelada ayaa u dhaqaaqi doona dhanka midig. Haddii aad rabto in aad si ku meel gaar ah u qariso dhammaan isbeddelada, u fiirso fursadaha ku jira liiska halkan. Hadda waxa aan aragno waa nooca ugu dambeeya ee dukumeentiga, laakiin iyadoo dhammaan isbeddelada iyo dib u eegista ay weli muuqdaan. Dooro calaamad la'aan oo calaamadayntu way baabaysaa, si aan u aragno sida qabyo qoraalka kama dambaysta ahi u ekaan karo dhammaan isbeddelada meesha yaal. Waxaa jira hal shay oo ay tahay in maskaxda lagu hayo, inkastoo tanina aad bay muhiim u tahay, qarinta calaamaduhu maaha mid la mid ah aqbalida dhammaan isbeddelada. Weli waxaad u baahan tahay inaad aqbasho ama diido isbeddelada dukumeentigaaga ka hor intaadan dirin nooca ugu dambeeya. Aynu nidhaahno qof baa dib u eegay oo tafatiray dukumeentigaaga, laakiin wuxuu iloobay inuu daaro isbeddelada track-ga. Weli waa suurtogal in la aqbalo ama la diido isbeddelada ay sameeyeen iyada oo la adeegsanayo sifo nadiif ah oo la yiraahdo compare. Si aad u bilowdo, guji isbarbar dhig tabka dib u eegista ka bacdi mar labaad guji isbarbar dhig mar kale. Waxaad u baahan doontaa koobiga dukumentigaagii asalka ahaa iyo weliba nuqulka nooca dib loo eegay. Markaad diyaar u tahay, dhagsii OK. Halkaa marka ay marayso, Word waxa uu isbarbar dhigi doonaa labada dukumenti oo uu la imaan doona liis isbeddel ah oo dhexdooda lagu sameeyey. Halkan waa dukumentigayga asalka ah, nooca uu qof kale dib u eegay dhexdana waa nooca la isku daray oo leh calaamad buuxa, sida haddii astaanta isbeddelada raad ku daaran yahay. Ereygu waxa uu awooday in uu tan isku keeno iyada oo ku salaysan isbarbardhigga labada dukumenti. Hadda waad aqbali kartaa ama diidi kartaa isbeddelada sidaan hore kugu tusay. Dhammaan sifooyinkan waxay noqon karaan caawimo weyn marka ay timaado iskaashiga mashaariicda. Waxay fududeeyaan in dib u eegisyada lala socdo,
oo ay fikradaha hore iyo gadaal u gudbiyaan si aad ula shaqayso dukumeenti isku mid ah asxaabta, qoyska, ama asxaabtaada.